بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan rabaa ukhuwada inaan ka hadlo waxaa u malaynayaa mawduuca ukhuwada mawduuc aad dad kalen u yaqaanaan weeye laakiin dhaqan ahaan laguma dhaqmo run ahaantii intaasaa xanuun ah qof maanta looga sheekeynayo inay walaaluhu muuminiinta walaalo yihiin ma jirto nin gabyaabaa wuxuu yidhi hadda ka hor فحيثما ذكر اسم الله فثم أوضاني meel kastoo lagu sheega magaca ilaahay halkaasoo waddankayga yahay ma ahan waddamada hadda jinsiyadda loo sameeyey oo mid walba meel lagu xirtay waxaas waa taladii gaalada weye taladii muslimiinta ma ahan marka muslimiinta weligood bay walaalo ahaan jireen waxaana ku dhex jirtaa maadaama aa muslim tahay akbar xiriir baa ku dhex jirtaa xiriirka ugu weyn maanta haddaad jaynaha tagtid oo qof muslimla ku aragtid oo iimaankiisa uu ku cajabiyo inay ku saamaysaa la rabaa ma ahan inuu jaynays yahayaa inaa kala luqad tihiin ma aha mujarad inuu muslim yahay oo ilaahay u sujuudaya kugu filan ma u baahnid inaa macnaha asbaab kale aa raadisid oo qofkaas aa ugu dhawaatid ma u baahnid nabi sal slam waxa weye marka waa raabidada ugu weyn waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah diinteenna muslimiinta diinihii hore ka horreeyey waxaa uga horreeya diinta islaamka ayaa uga horreysa ukhuwada akbar diin oo muxuu ahay ukhuwada ka sheekeysa oo ukhuwada muxuu ahay xoogga saarta oo ukhuwada ay caalami tahay waa diinta islaamka nabigana sal slam muxuu yidhi halaathun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaan saddex qofkii ku jira iimaanka macaankiisuu helay an yuxiba lilaahi wa an yakraha lilaahi wa an yucdii lilaahi wa an yamnaca lilaahi qofka inuu ilaahay dartiisna muxuu ahaye wax u siiyo ilaahay dartiisna inuu macnaha wax u jeclaado ilaahay dartiisna inuu wax u gooyo inuu necbaysto kufriga inuu ku noqdo waa saddex inaa ilaahay dartiis wax u jeclaatid ilaahay dartiisna wax u goysid wax kale uma goynaysid qofkaa goynaysid marka waxaa u goynaysaa sabab waxaa kugu filan inuu qofkan ilaahay ka fog yahay qof xun yahay saa darteed aa u goynaysaa ma u baahnid sabab kalena ku goysid marka raabidada ugu weyn oo waxaa weeye muxuu ahaye ukhuwada معناها أخوة محل هو مركة أخوة ورابطة إيمانية تجمع بين المسلمين على أساس العقيدة عقيدة ذي كحرنتها مسلمين تأيي شو كل مساح أساس كذا وحوي عقيدة أنا إلهي نوسو تجيي إلهي كل يسأل عبودة أنا بس وي أساس كذا وما بهنا مركة أخوة إنا معناها إسكرارتهين إنا إسكو مذبتهين إنا إسكو لغتهين إلههم اللغة ده حتى لو فهم كرن يعني هذا فهم كرن حتى ولا الكا ويقف كان وحق بدن كقوله marka kuma xirna maalka kuma xirna maslaxada kuma xirna walaaltinimada kuma xirna nasabka kulli kuma xirna nasabka iyo markii la dhaho qaraabada ukhuwada way sii kordhisaa dad waxaa jiro ukhuwada macna qalad ka fahmay oo ukhuwada waxay u fahmeen dadka madaarista la dhigto diinta la barta kaliya u qabaan maya qofka muslimka walaalka oo qaraabada asagana walaalka way walaalka muslim way xaqi walaalka uu kugu leeyahay saaxiibka oo madrasadii masaajidka iskula joogteen ka badan buu kugu leeyahay xaq qaraabada sii dheer marka dad waxaa jiro inta badan isjamaacaysto oo muxuu ahaye intooda saaxiibada kaliya u baxsada ilaahay dartiis inta kalena macnaha mujtamaci ka hara waa khalad arrintaas marka ukhuwadu waa wax ballaaran halkan ayad baan soo kulminaysa inama almu'minuuna ikhwa qof kasta oo iimaankiisa xoog uu leeyahay walaaltinimadiisa xoog bay leedahay waxaa ka dhexaysa xiriir xoog badan baa ka dhexeeya iimaankaaga markuu daciifana walaaltinimada oo ilaahay dartiisa oo qofka lagu xiriiriyo wuu daciifayaa taa ku xisaabtan marka waxaa ka dhexeeya labadooda xiriir baa ka dhexeeya mixwarka koowaad booskee bay ku leedahay muslimka marka islaamka diinta islaamka booskee ku leedahay ukhuwada iyo walaaltinimada ilaahay sha'niga ukhuwada kor buu u qaaday sha'nigeeda kor buu u qaaday wuxuuna ka dhigay awthaqu cura alislaam cura aliimaan xarigii ugu adkaa oo cura aliimaan ahaa كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله حريرك وسرّي وحب بدن حرير إيمانك وإلهي درتي سول اسكو على إلهي درتي سول اسكو نعم مركز تاس كلي أيا كاغا فلان النبي صلى الله عليه وسلم بانيين رواه أحمد وصححه الألباني نساس وكان النبي صلى الله عليه وسلم محيري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه qofkiin ma rumaynayo bal u fiirso iimaankiisa kaamil ma noqonayo weeyo ilaa uu naftiisa la jeclaado wuxuu walaalkiis ilaa uu la jeclaado walaalkiis
wuxuu naftiisa la jecel yahay naftaada inaa waxaa la jecesha walaalkaa la jeclaataa la rabaa marka ma samayn kartaa taas weligaa ma isku bandhigtay anigu dadka kale nafteeda waxaa la jecla ma la jeclahay ma isweydiisay arrintaas waa arrin muxuu ahaye su-aasheeda mudan qof kastoo iimaankiisa raba inuu xoojiyane ukhuwada waxay u tahay markas weyn bay u haysaa iyo boos weyn falxubu fi llaahi daliilun calaa sidqi aliimaan jacaylka ilaahay waxay daacad u tahay qofkan inaa muxuu iimaankiisa uu saxiix noqday u fiirso qof baan iska hor imaanaynaa isku qabiil ma nihin isku muxuu ahaye dhar ma nihin isku jildi ma nihin waxaa laga yaabaa luuqadda aan isku garanayna keliya inaan isla naqaano ma fahante oo iskula hadlayna bes haddana waan jeclaaday qalbigayga wuu jeclaaday ogow markaad iimaankaan xoog buu leeyahay ogow iimaankaaga xoog buu leeyahay laakiin haddii iimaankaaga jacaylkaaga uu maslaxad ka dambayso waxa waaye iimaan kuma dhisna taas qofkan aa wax ka heshid ama aa wax muxuu ahaye aa u soo dhowaatid oo adiga kor ku noqotid waxaas hadday kugu jirto ilaahay dhankiisa maad u niyeysanin mixwarka labaad tamaraatu alikhwatu fillaah maxaa ka helaynaa haddaa ilaahay dartiis ku jeclaano kow waxaa ka helaynaa naylu maxabat allahi tacaala ilaahay baa ku jeclaanaya qaala allahu tacaala wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya waalmutajaalisiina fiya waalmutabaadiliina fiya waalmutazaawiriina fiya waxaa u waajibtay maxabadayda jacaylkayga ma inuu ilaahay ku jeclaado wax sahla may u qabtaa maanta haddaan ku dhow wasiir baa ii imaanaya gurigaane maxaa samayn lahayd dhalkaa kugu yaraan lahaa haddii lagu dhahayo maantana ilaahay baa ku jeclaanaya ilaahay baa muxuu ahaye waxaan kugu soo dhawaysanayane inaad waxaa laga yaabaa danka gelin la'anno annagu ma aragna xata allah ma fahante ma aragna allah saa darteed macnaha waxaa laga yaabaa qiimo badan inaan macnaha arrintaas usii sameynin marka ilaahay muxuu leeyahay wajabat maxabatii waxaa u waajibtay jacaylkayga lilmutaxaabiina fiya kuwa daraaddayda isku jecel way u waajibtayba ma fahante waalmutajaalisiina fiya kuwa daraadday u wada fadhiisanayo waalmutabaadiliina fiya qofka kuwa daraadday wax isku weydeersanaya waalmutazaawiriina fiya kuwa daraadday isku booqanaya marna adoo muxuu haye saaxiibta xataa markii laga saaro shakliyaadka dhan inay macnaha madarso kula dhigto inay meel xijaab asla xirataan inay isjeceshihiin markii laga saaro ilaahay daraaddiis mar weligaa ma boqote ayadoo xataa ku dhibaateynayso ilaahay daraaddiis ma uga aamustay oo muudul qaadatay arrintaas waa su'aal mudnaan isle moogte waxaan ilaahay dartiisa nooga tegi kartid cumar ibn khadaab wuxuu ahaan jiray dadka kulul oo muxuu ahaye xanaaqa badan wa kaana waqaafan cinda kitaab illah kitaabka ilaahay markii lagu soo qaadana wuu istaagi jiray yaa markii la dhaho waxaan ilaahay baa saan yiri wuu istaagi jiray ma ahan anu waa kululahay dadkan laayaay waa gacan culus waa gacan fududahay waxaas wax ma tarayso waa faan cidlaa qof kasta wuu isqaban karaa marka waxaa la rabaa qofka ilaahay dartiisna inuu naco ilaahay dartiisna u jeclaado ilaahay dartiisna isku celiyo caradiisa iyo wax walba inuu muxuu uga noqdo sidaasoo kale xadiiska wuxuu yidhi dilul carsh maxaa ku helaynaa tamarada kale ku helayno muxuu ahaye waxyaabaha kale oo ilaahay dartiis ku helayna maxaa ka mid ah inaa harsanaysa carshiga maalinta dadkoo dhan uu dhididkooda qariyo inaa harsatid ma wax sahlan baa subxaana allah ilaahow nasii rabbi raxmaano oo daraaddaada ku isku jeclaado oo qalbigooda nadiif ahaad ilaahow naga dhig yaa allah macnaha dadku markuu maalintaas dhididkooda harqiyo oo dunuubtooda ee harqiso adiga waxaad harsanaysaa harka ilaahay baa harsanaysaa waa akbar thamara oo qofka muslimka uu ka suguway inuu ilaahay dartiis qof wax u xiriiriyo sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dilla ilaa dillu nabigana sal slam wuxuu yidhi 7 ilaahay baa harinaya maalin aan har jirin harka ilaahay maahane harka ilaahay baa maalinta harsanayaan dadkaas maxay ku harsanayaan inay ilaahay dartiis isku jeclaayeen oo ilaahay dartiis isku kaalmeeyeen waxaa ka mid 7 waa garanaysaan labada warajulaani taxaabaa fillaahi ijtamaca calayhi wa tafaraqa calayh markay kala tegayeen iyo markay kulmayeen ilaahay dartiis isku jeclaayeen warajulaani taxaabaa fillah rajulaan meeshaan lagama wada 2 nin waxaa laga wadaa 2 qof oo kaste oo ilaahay dartiis isku jeclaatay marka adna markaa masaalixdii waxyaabaha kale meelahaas ka dhigno ilaahay dartiis la isku jeclaan waxay leedahay dhadhan gooni ah leedahay qofka dhadhamiyaa dhadhamiyey waxaa ka mid ah dukhuulul janna maca almaxbuubiin jannada inaa la geli doontid dadkaa jeceshaha nebi sal slam xadiis ayaa la weydiiyey anas radiallahu canhu wuxuu yidhi nebiga sal slam nin baa u imaaday caraabi ah markaasuu yidhi yaa rasuul allah anigu aakhare xaggeen gelayaa marka wuxuu yidhi anigu soom badan ma samayn salaad badanna ma samayn yaa rasuul allah laakinanii uxibuka yaa rasuul allah laakinoo rasuulka ilaahay waa ku jeclahay
waxaa dhacday arrintii nebigu wuxuu yidhi almar'u maca man axaba nebigu wuxuu u jawaabay qofku dadku jecel yahay lala soo saaraa marka dadkaa jecesha hadday rasuulkii iyo saxaabadii dadku wanaagsan yihiin ku bishaarays dadkaasaa lagula soo saarayaa samarada ayadan samaro weyn waaye muxuu haye waa midda kale oo nebi sal slam marka waxay dhaheen anas radia allahu canha famaa farixnaa bacda alislaami faraxan biqowli nabiy sal slam almaru maca man axaba markaan islaamnimada farxan ku farxanay farxad ka weyn maana farxin ereygaas markaa rasuulka ka maqalnay rasuulka inuu dhahay macnaha waxaa lala soo saari doonaa qof walba qofkuu jecel yahay saameynay lagu yeeltay aad ba u farxnay laana saxaabada rasuulka way jeclaayeen sal slam xataa markuu weysaysanaya weysadiisa dhug kuma dhici jirin markuu muxuu haye wax walba way ka barakaysan jireen wayna jeclaayeen way is ogyihiin inay nabiga jecel yihiin sal slam marka ereygii uu nabiga dhahay waxay dhaheen bishaara loo noqday aad bu bishaara loogu noqday samarada kale oo ku xigto dahaarat alqalbi qofka qalbigiisii nadiif inuu noqdo qofka hadduu ilaahay dartiisa ka u jeclaado xaasidnimo lagama helo cuqdad lagama helo hebel baa saa yiri lama dhaho liannu anaga waxaa noo degsan muxuu haye qorshe ilaahay noo dejiyey wuxuu dhahay wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura dadku inta badan maxay gadaal uga cabtaan waxay gadaal uga cabtaan qofka markay waxa siinayaan wax bay ka rabeen wax kale ka rabeen ma fahante marka haddii wixii laga heli waayo waxaa dhacaysa holdho hebel aniga maalin walba waa soo korin jiray waxaana siin jiray waxba wuu ii tari waaye laakiin qofka markuu ilaahay dartiis wixii u baxsado maba ka daba hadlaba wuxuu dhahay waxay leeyihiin inamaa nudcimukum liwajhi illah waxaan idiin quudinayna ilaahay wejigiisa laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura abaalna idinkama doonayno abaalmarina idinkama rabno marka qofka bilaadanka hadduu ku xisaabtamo qofkan inuu ilaahay dartiisa u jecel yahay waxba kama dhex raadiyo maslaxad kama dhex fiirsado ma fahantay dahaaratu lqalbi waa marka inaas xaasidno oo isdhibaateenno oo istilaafeenno waxaa keenayso marka horeba waxaana is leenahay muxuu ilaahay dartiisa isku jecelnay maba ahanba asaasan calaa asaasi almaslaxa weeye ma fahantay inaa isku xumaano maslaxaddaa keeni doonta maslaxadda adduunyada meel kastoo soo gashan way kharibaysaa la socda meel walba ay soo gasho way kharibaysaa quruxdana way ka qaadaysaa mixwarka kale namaadij min alukhuwa fi cahdi nubuwa ukhuwada xilligii nebi sal slam nebigu wuxuu markuu saas camalka koowaad uu sameeyey waxay ahayd markuu madiine imaaday akhaa bayna almuhaajiriina waalansaar ilaa ay gabdhahoodii xataa isku furigaareen oo ku dhaheen muxuu haye saxaabida ka mid ah laba xaas baan leeyahay soo fiirsa mid baa kuu furayaa xoolahaygana bar qaado maanta qof saas dhihi kara waa yaryihiin saasoo kale waxaa kaloo lasoo qaadan karaa see loo ilaalin karaa ukhuwadaas waa midda koowaad waxaa lagu ilaalin karaa alikhlaas walmaxabatu lilaahi waxda ikhlaas qalbigeena nadiifa oo aanan u jeedin adduunye marka horeba annusxu waatawaasi bilxaqi inaan isku dardaarano maantooda aan isku naseexeeno iyadana waxay kordhinaysaa inaan ku ilaalino asitr watasaamux inaan isdhaafno oo iscafino dembi waa kala gelayna laba qof oo waxaan nahay isku dhawaato ilaah dartiis isku dhawaatay marka inaan iscafino oo muxuu haye aan isdeenno wacadamu tatabuc alcakaraat qofkan cawradiis inaan raaraacin iyo dhibaatooyinkiis inaan raaraacin silatu likhwaani biziyaarati waducaa in dadka lasoo booqdo oo loo duceeyane alwafaau cinda alqiyaami wa bacda almowti qofka markuu dhinto inaa wafi u ahaatid waxaa isku ogeedeen inaana ka bixin waxaasoo dhan waxay ku keenaysaa waxaa kusoo koobaya hal qiso oo nebi sal slam xilliga saxaabada dhacday waxaa jiri jirta saxaabi uu yiri nebi sal slam yaa maanta martidan qaadanayo oo walahuljanna janno qaadan doona saxaabigaas gurigiisa waxaa yaallay baa yiri cuno yara cunadan ciyaalkii ku filneed markaasuu yiri aniga maanta inaan jannada qaataa jirto wuxuu yiri yaa rasuul anaa qaadanay guriguu geeyey dadkii martida ahaa leyrkii wuu u damiyey islaantiisi isaga waxay iska dhigeen muxuu haye wax cunaya sida martida macnaha dhibaato u dareemin ciyaalkiina wuu seexiyey martidii buu siiyey intuu hayey markaasuu yiri nabi sal slam markuu subaxii u maaday shakara allahu saniicaka albaarixa xalay waxaa samaysay ilaahay wuu u shukriyey marka namaadajta aad bay u badan yihiin halkaasaan kusoo koobaya walaalo badan baa iga dambeyn doona waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu jacaylkeena ilaahay dartiis noqdo oo ilaahay dartiis ku xiriirino halkaas ayaan kusoo koobaya hada billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu